xukuumadda dalka Sacuudiga ayaa bilowday boobka baloodhada iyo hantida shacabka sida madaxda Soomaalida qaar dil toogashana ku xukuntay muwaadin qoraal ku soo qoray baraha bulshada warbixintan ila dhugo oo ila dheeho oo ila dhameystiro dhawaaqa dhiilada la dhagaha ka soo gaadhaya dhinaca iyo Sacuudiga xukuumadda Sacuudiga ayaa laga deyranayaa hanaan socodkeeda dhinaca la tacaamulka bulshada iyadoo caga juglan iyo jujuub ay kala kulmayaan bulshadu xukuumadda haatan majaraha dalkaasi haysa xukuumadda Sacuudiga ayaa bilowday boobka baloodhada iyo hantida shacabka qofkii diidan ay dilayso sida ku dhacday Cabdiraxiin Axmed Maxamuud Abu Daqiiq al-Xuweydihi oo ay ku amartay xukuumaddu inuu ka guuro gurigiisa isaguna uu diiday kadibna ay ku dishay si goobtii gurigiisa uu ka dhisnaa qisada labaad ee bulshada ama ka galisay ayaa ah in bishii 10aad ee sanadkan ay ku sugannahay 2023 muwaadin u dhashay dalkaasi Sacuudiga laguna magacaabo Maxamed Naasir al-Qaamidi lagu xukumay dil toogasho ah kadib markii uu qoraal ku soo qoray baraha bulshada gaar ahaan dhinaca Twitter-ka ama X qoraalkan uu soo qoray ayaa dawladdu qoonsatay kadibna lagu xukumay dil toogasho ah xukuumadda dalka Sacuudiga ayaa cagta saartay dhabihii talisyadii hoogay ee hore ee hareer maray haykalka dawladnimada ee saliimka dulmiga tacadiga taagtaagsiga maatida waxa uu calaamad iyo sumad u yahay burburka dawladnimada iyo deegaanka sida uu sheegay aqoonyahankii qoray cilmiga bulshada Cabdiraxmaan ibn Khalduun uu ku sheegay kitaabkiisa ديوان المبتدئ والخبر في التاريخ العربي والبربر ومن عاصره من دو الشان الأكبر وكيري أن الظلم مؤذن بخراب العمران ومعنى هذا النقطة يسوه ظلمه وديجها بربر كالدولة لماذا يديجانك هذا بدأ وده محا السبب إن مدحضة لما تود أي بلابان مدوين كوجود بيجي بوب كبلورنا ضيا هنتيت الشعب كا وحور بحين تدرس عسيني يعني جوه برا كوسر وحنا دقيقة جاية سلام عليكم من رب الودود والكرم